ku bilaabayaa magaca leh naxariista guud iyo tagaar ahaaneed nabad iyo naxariisi korkiina ahaato meel kasta oo joogtaan sidaad u jeedaan caawa waxaa jarmalka marti noogu ah walaalkeen Sheekh Abubakar ama magaalada Mainz marti noogu ah berina wuxuu marti noogu yahay insha Allah magaalada Wiesbaden waana labada magaalo ee mataanaha weeye labada masaajid Abubakar ay ku kala yaalaan magaciisa kale ma sha Allah ay wataan ma sha Allah waxaan ku martaqaadnaa caawa barnaamijkii ahaa Wie kann ich in Deutschland leben sidee ayaan jarmalka aan ugu noolaan karaa ku soo dhaw jarmalka Sheekh Abubakar aad iyo aad baan u dhawahay Sheekh Ilaah subhanahu wa ta'ala aad hadiyo sida wanaagsan quruxda badan oo la cadeynta sidata aad yani nagu soo dhaweyseen magaalada Mainz iyo Britain oo socono Wiesbaden masaajidkiina Ilaah subhanahu wa ta'ala idin barakeeyo Masjid Abubakar Sadiq ما شاء الله jarmalka jooga oo khaasatan labadan magaalo aad iyo aad bay ugu farxeen adiga iyo ninka odaga aad iyo wallahi aniga horta aad baa u farxa mar walba aan imaado Jarmal ma sha Allah sababtoo ah tusaale ahaan Sweden ama France ama wadamada kale marka aadaysid dooran waxaa laga yaabaa waxay tahay in dadka ay yani ay kala duwan yihiin odayaal aad arkaysa dhalinyaro aad arkaysa iyo dumar iyo rag laakiin halkan yani dadka ugu badan waa dhalinyaro ma sha Allah waa dadka la kulmay waa dad yani aniga ila da ah oo yani 20 jir dad dhalinyaro يعني waxaad arkaysaa waxay tahay 20 jir ah oo 23 dhalinyaro aad arkaysaa oo baxay bulshada Soomaaliyeed marka yani aad baan ugu farxaa in dadka markaan arko oo ayagoo wadankan jooga haddana wanaaga ay khayrka sida u camiraya jacayl dhageysanaya waa shay aad u qurux badan wallahi idinkan waa idinku hambalyeynaya idinka halkan macluumaadka ah waa waxa soo saarteen oo taana nicmad weyn weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala celiyo wallahi aad iyo aad Allah ku barakeeyo aduu laftiga dadaalkaaga ma yara dadka meesha jooga aad bay ku jecel yihiin waxa weeye waxa laga la socday hawada iminkana waxa weeye maanta waxa lagu arkay si toos ah loo arkay farxadiyadana aad iyo aad weyn bay ahayd wadanka Jarmalka saa u sheegtay dhalinyaro ayaa ku badan صح walibana khaasatan dhalinyaro markay hada waa magac guud weeye laakiin qayb baa ku badan qaybta ragga aadna ugu badan maxaad kula talin lahayd dhalinyaradaas ragga u badan dhalinyarada u badan oo aniga aan ka mid ahay xitaa waxaan la talinayaa waxay tahay dhalinyarta in ay saddex arrimood ku dadaalaan oo aniga xitaa aan ka mid ahay saddex arrimood midka ugu horeeya waxay tahay waa aqoon Allahu akbar sababtoo ah waxaa lahay waxay tahay haddaad rabtid adduun ku dadaal cilmi haddaad rabtid aakhiro waxaad ku dadaashaa waxay tahay waa aqoon iyo cilmi labada haddaad isku rabtidna aqoon iyo cilmi ku dadaal waxa kaliya qiimo sharaf عز كوكو قاضية كونا جنية الدون إي آخرة وحول بعد ربنا كل ليست وحيتها وعلمي علماء الحقيقة وحيتها ففوز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحيا علمي كوكو ليس علمي نقوم كوكو ليس ننكاءات صوابته هو اللي قال وطنه لا نيسا الدون كاد يعني ما كان كتاب أكلفه تدبا يعني مسكح بدان نول بدان أي أقنيسة أي أضع هل نول أي وحلا متهذي وكن نول أو وقتها وكيسي فايدة سنيسة ما كان جري وتتكلم من علم جاجا وسيا لا أو ما قاعد يقول وجرا إمام البخاري أما قال الله حتى أنا كقال أينشتاين أما قال يقول أنت يعني وحنا واحد قيمة وحكوية لي أدون كان هي آخرة وعلمي ما كعلمي أو كده إن شاء الله تعالى تعرف الصوماليين كتر هذول مقعها شنو وكلوي يعني مقعد وشري ولقى الله وصين ولا نسا يعني أظن انتبه هذا حي نقنيسا ونقنيسا يعني نفس هذا يقف فكر كاجي يوم كان بس بدلية مال مقعد وحب أردنا علمي أقوم كده بلشدين أنا والله أقونا وباهن هاي يعني خوف ما بقوم زيادة قابو فكر إنه شيء بس بدلية استاسوكو علمي أنا كده إن شاء الله تعالى مدلبات وحيتها هاي جوكا الله أكبر ما كنا شيء على قصلا صوت أنا أعطاكم مدة أنا أعطاك سكولا لكن وحكوا وحيتها أنا دائما هل كم حب من بعض النير يعني أنا يفتح واحد إلى وحيتها يغبى الجوجا قفوا أنا مثلا أدون لو فتنة جو فتنة الشبهات أو شبهين وحياة الأوين اللي قاعدة عسينا قبل وفكرة على بدل يحلم ده إيوه فتنة الشهوات وحدي غلط دغن
qof dareen ugu jiro dhalinyaro tahay 20 jir tahay banaanka u bixisa waxyaabo dadkiisa iskuulka aadaysa wixii la mid ah dhan wax walba gacmaha ay ku jiraan sikin mobilka snapchat ay gishada kugu filan wax walba iyo wax easy wax walba waa gacmaha ay ku jiraan marka aan waxa dhilaa waxay tahay dhalinyarta haday ay guursadaan oo dareenka si xalaal ah ay u gutaan guurso waxa laga wadaa waxay tahay dareenkaaga si xalaal u maaray wax kale maan guurso wax weyn kale maan waa dareemahaaga oo si xalaal ah u maaraysid kadibna energy kale aad helaysa oo aqoon iyo horumar iyo wax walba aad ku siisanaysa waa muhiim yani waa halku nabiga ka yiri way fatqu dunya wattaqu nisaa yani dumarkana ka baqa waa fitnadooda aad bay u badan tahay adduunyana ka baqa ku fitnoobinay fa in awwal fitnati fitnadii ugu horeysay ee bani israa'iil waxay ahayd fi nisaa adduunka hoolihiisa aad bay u badan tahay haddii yani arinta oo dareenka aadan maaraynin kuwa kale ma sii wadi kartid waxbarashada ganacsiyada process aduu intaas process sababta nabi fitna u dhahay ma taqaana buugaa jirto oo ugu galasha badan adduunka marka laga hadla motivationka isbedelka waxaa la yidhahdaa think and grow rich فكر او يعني وحاس الله مركب وحيابه او شيء waxaa kamid ah wuxuu ku leeyahay dareenka ugu weyn ibn aadam ugu jiro waa jacayl Allahu akbar jacayl dareenka ugu weyn ibn aadam laba mid dhaqaajiyo waa fakir iyo dareen dhaqaajiyo dareen cabsi waa yani dareen qof u dhaqaajiya dareenkaasna ugu weyn jirka ku jiro waa dareenka shahwada hadduu shahwadaas uu maareeyo kadib energygaas dan meel kale u gelin karaa powerkaas dan فكركاga فراشة نقونية وإحنا متى فإذا بدنا هذا فاتقوا الدنيا محلو ليه يعني أديك هدانا كان أي ديكسنين ما تقول جبر باكر أوردي ما تقول كان شو كان سناب شات تن حالي تن يعني كان تن ما تروح مشغول سنتي وإحنا لا يعني خيبة لهن قومي دقائق يعني قومي وحبر بوسس نعيش سكسس أكجارس هذا ما تروح مشغول سنتي يا شلون يا با يا قطع وإحنا متى يعني تاسو أنا وحب واحد الله أقول إن شاء الله تعالى mid ugu dambeeya waxay tahayna waa in aad idinka aad iskaashataan midnimadiina waalidiinta baaga in loo noqdo iyo taa oo dhan insha Allah taala dhaqankiina diintiina inaad haysataan insha Allah taala marka in la iskaashado cod furaa dhahay codka inta ka xiran in la iskaashado waa muhiim biyaa waa ku jirtaa بريك والله بريك تايم ما شاء الله ما شاء الله سولوا هذا مرحبا بكم سولوا هذا والله رجال خير الله ينسيه وحوي وحنا جلسنا عطان برنامج كي أها في كان إيش إن دوتشلاند ليفن سيدا أيام جرمك عن أقول ولا كرا جرمك حقون ولا كرتا عفوا سؤال شاد عقلا علمي أخوان تشيجي نوايب وكا جرمك حقون ولا كرتا مكة أو أبوسد جرمك حقون ولا كرتا وحيد الأخن كاي يدت كاي برشة مكة تلح يعني وسميت آتهين مكة سبعنا ولا أنا كاو من اللي قاعه أدياب marka wakaas mar walba aan weydiino talooyin iyo Allah musta'an iyo fikiro iyo qaabo badan aan weydiino marba cidii aan martida inoogu asaad hore aad ula socoteen iyo walaalihii intii la socotay soo dhawaada ayaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala aan haydin barakeeyo qodobka laga hadlayaana waa qodob xasaasi ah oo dhalinyaradu ilaa ay sameeyaan horumar lama gaadhayso samayn sheekh horumar ma Allah wadad ma laga kiciga haddaan la ismeeleeyay wadad hataa laga kiciga marka aan kula kaftan waa sheekh Bakar Soomaali geeska gees ayaad uga baxday adiga iyo ninka Umar gabdho badan oo joogan marka marka qaar waxaan soo warmaha sheekhu gabadh mu waayeen mid gacanta lagu soo sameeyo raadinaya ma China هذا طعمان ان شاء الله تعالى قفل بوطا اهداف وليه ممتع وعياه وليه قفل ماشي سوا سيجار وحباجة ممتع انا قبل كده انت تشاينا مسوقاي قبل صوماليا انا قبل كلا وما اكب قبل وقوه بدونك حامي سنه وقبل صوماليا يا سلام قبل صوماليا عدا هو امان لما امانه يعني قبلها سوماليدا جودها هي كونكسني تيرشول أصل كولا ونكسن حديتي ونكسن دنتو ده واقع وحيا لفني دنتي أصل كي ونكسن بس يعني وقبله باريال قبل هو البوا سيف فضول أو سجيد كتا يروح لمتا دوا قبل الدين أخلاق لا يروح لمتا سوى البوا وقدرنا ده حلاقي فكر كان إن قدرتها لكن أصل كذي ونكسن تاي سؤال بدنا قبل الصومالية جانبه قبل الصومالية قبائل ويدير باشرة wax isku wada raacin dhamaantood gabadha Soomaaliyeed waa gabadh nolol walba qabsan karta
ولا أوغادي تاجرت هنا نول تجارة هذيك الشو وقبصنسا نول فخري هذيك الشو وقبصنسا يعني سبحان الله وحي سميسين قاب فلكسيبل taas noloshana hal ma amugta gabadha Soomaaliya waa gabar oo baari ah nolosha si walba baasa sheegayso way kula jaan qaadaysaa marka walaa gabadha Soomaaliya Ilaahay xifdiyo gabar hooyooyinka fiiri 10 shaqo isku hayaan guri subaxda ayaga ka soo kaco wixii wallahi ma shisheey lama shisheey halkan waxa taala hawsha ila qabso 50-50 way Soomaa 50-50 Allah musta'an khayr Allah ka dhigo weydiiya dadka kale 50-50 alaamta la qaay ma beertan ayada qatays وأدرست كل دارين من الشيخ ما ترى سفر بجزء شريسي ولكن مركا وقت بعد بوعدلو يهاي إن استخدام بسود يارنيان ونوجه السؤال بدن بعد أحد النكال حقوق حيسا لكن سؤال شو مهم سنة برنامجك الشيخ ممكن برنامج سؤال بيكون جدا سؤال شو صوران سمحك يا بي محاكي كم حق ولا يبقى بدنا والله بالله وحضرنا جت يابا لك وحي ويابا معاه جمل لما رجع كبور والله الضوء يلا إنسان ما قدرت كذا على صالون كرجال ضوء يا شلون حريص سؤال شو حقيقي سعتها كل يكون صومالي نقول بسوق من كلام والوضع قبصو يوروب تنو قول دواد لا ده ورشة ما كوجود ماذا سويدن قبلت أنا يلا قبل ما كان عندنا بعد سعاوية والله شقين أنا تاسم والله شقين وأطبق لسه ستوكهولم وحوي ستوكهولم فرانكفورت أسبوعنا مايز نوسو قمنا ويسبايدن نوسو قمنا باش وحوي رك بدن أو مقرن سام قاعد دك نوسو قمنا اللي والله مساكين والله قول شيخ أنا قدرت وحوي الحمد لله رب العالمين ما أدري أفاين أو طيب مش شيء ما وقته واحد بقى داش شيء وارد من يقبضه ماشي شيء لكن أفاين ما نروح مقرن مركز والله الله يخليك جرا أي أوكي هوية واحد تاع جدا مقرن الله حفظي الله دورين لنا عن قدام ونسأله ممكن ما حنا يجين بنتي ما لابد المجال كذا تكون تين سؤال تسمى كهروسي بحق الشام بالغيابة والله واجع لا لكن هذا سيد قوش اسمه والله والله مجال وكلية إن شاء الله لكن ويدك سؤال على لبن دون ما عسى حاجة يرجع لنا يرد يا شيخ أمايس يويس بعدين فيس بعدين الله ما شاء الله صلوا شيخ ودونا هادي بارك الله فيكم هذا نوقف رحنا إيمان ما أنت وأنا نور السن ريتو نو حرجينا إن شاء الله فيس بعد هذا يسوقيا طبعا بشين بدن باكتيرا waxaan manayaa waad cabatay waxaad wali wax baan raadinayaa Facebook inaad ka bixi doono baan manayaa ya salaam layaasi habeen la sheekha كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.